bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات كسو دوادا برنامجكي إنو سعودي قيب كميدا وبرنامجكي قراشة عذر كاغو وقوشة عافيمات كاغا برنامجكي دانو مقعدرنا قيب كميدا وانكو ايغينو تماها داتا تماها تشتشبه رقا إيدو مركبا محا كيني كارو محا سلقود داوين كرا حالكو محو نقون كرا محا moogtahay oodan ogeyn oo u baahan tahay inaad ogaato ilaan waxa weeyaan caafimaadka hal dhinac laga raadiyo waxa jira waxyaabo badan oo keeni karo inay timaha ka gurmaan timaha ka jajabaan markaad shalaysataba timihii ay go'ayaan ciladaasi ma fiirisay waxyaabaha keeni kara ma baartay dhaqaatiirta ma kala tashatay in badan ciladaas marka waxa keeni karo cudurradan loo yaqaano masiga sixirka qaybtiisa tactiilka loo yaqaano iyo qaybta tafriiqa loo yaqaano labaduba way keeni karaan timaha inay daataan qofka hadii loo sameeyo waxa kale oo keeni karo inay timihii daataan isha xasidkana way keentaa oo qofkii hadduu timo dheer lahaa timihii laga xasday haddii haweeney ahayd iyo rag ahaydba timihii qurxanaa isha hadday ku dhacdo oo timihii laga ilaysto qofka timihii way jajabayaan way burburayaan cudurrada noocaas ah ee masiga loo yaqaano way keenaan in ay qofka timaha daataan asagoo timahaas daadanaya waxaa la socdo xanuun madaxa ah madax xanuun fara badan qofka mar walba inuu ka dareemo madaxii cariiri timihii ay gurmayaan timihii shalay laga shaqeeyay maanta ay yihiin kuwa kale oo nooc kale ah oodan u dalqaadan karin stress aad ka dareemaysid xagga ku saabsan timihii ciladaasi qofka haddii isku arko waxa weeyaan waxaa jira cudurradan masiga loo yaqaano sixirka ama isha xasidka haddaba marka ciladaasi sidee ayaa lagu daaweeyaa daawadaasi waxay tahay dhowrkan qodob oo aan rabo inaad idin sheego idin la wadaago maxaa yeelay cudurkii haddii aanu sheegnay iyo qaabka wax u saameynayay daawadiisuna waa inaan idinla wadaagno waxaa kaliya lagu daaweyn karo ciladaas waxaa weeyaan walaalayaal waa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala munasalka ee inoo soo dejiyey daawada ku jirto in maaragtay la isku daaweeyo iyo geedka loo yaqaano sidirka caleentiisa oo lagu burburiyey saliid saytuun qur-aan lagu akhriyey iyo saliid saytuunkaas markii lagu daro cusbada qaybtan daawada ah markii la isku daro intaa ayuu qofka madaxa marinaya timihii uu marinaya jirka dhan buu marinaya especially timaha hal usbuuc handuu mariyo waxa weeyaan caadi uu noqonaya qofkaasi timihii jarjarmayay ee uu keenay sixirka isha ay keeneen way tirtirmayaan oo way dhamaanayaan dib dambana insha Allah taala inuusan isugu arkin ayaan rajaynaynaa qofka sidaa sameeya habeen iyo subax mariya intuu sidaa u diyaarsado sidirkaas iyo saliidda saytuunka quraan ku akhristo cusbadana ku darsado cusbadu waa midda daawada ah inta badan UK dhulkaas laga helo cusbadaasi ayaa la isticmaalayaa kadib qofka hadduu sidaa sameeyo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caafiyo quraanka aad akhrisanaysid marka ood isku akhrinaysid ama aad saliidaas aad diyaarsatay aad ku akhrinaysid iyo geedahaasi waa suuradahan caadiga ah ee maalin walba la akhriyo ee aayadaha sixirka macuuteynka aayadahaas aad ku celinaysaa ayad kursigii aayadahaas ayaad akhrisanaysaa kadib ku tufanaysaa suuratul baqara haddaad ku tufan kartid waa ma sha Allah aad bay u fiican tahay marka sidaa samee isla tacaal haddii aadan heli karin qof ka saacideeyo waxyaalahaas ama uusan ku dhaweyn oo timihiina sida kaaga gurmayaan ma aragtay raadso daawada geedahaas raadso
haddii aadan heli karinna alhilaal baa kuu soo gudbinaysa meel kastoo joogtana kuu keenaysa lambaradaas kala soo xiriir waanu kuu keenaynaa meel kasta oo maara dunida aad ka joogtid insha allahu tacaala kasoo dalbo alhilaal haddii aad heli karto meesha aad joogtid laga heli karana waa kuu tilmaamay waxaan ku yidhi waa sidir iyo saliid saytuun oo asal ah nooca originaalka ah oo aad qur-aan ku akhrisay iyo cusbada qaybteeda daawada ah ma ahan cusbooyinkan caadiga cuntada lagu darsado cusbo daawo ayaa jirto waad heli kartaan insha allahu tacaala sawirkeedana waa idiin soo dhigi karaa lambarka igala soo xiriira si aan sawirkeeda iyo informationkeeda iyo meelaha laga helo aan idinkugu soo gudbiyo dhammaan waxaynu walaalo ku nahay diintaas islaamka iyo wada xiriirka wanaagsan iyo information inaan mar walba isu soo gudbino maxaa yeelay informationka aan idin siinayno oo ku saabsan dhanka caafimaadka runtii anaguna waqti baan gelinaa adinkuna waxaad gelisaan waqti oo waad dhegaysataan in lagu camal falo oo maaragtay action loo bedelo la practice gareeyo informationada aan idin siinaynana aad bay muhiim u yihiin aad baad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bulshooy bishaaro bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan laysku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex daraye haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore alhilaal habol online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale alhilaal habol online waxay leedahay